xildhibaanada dhalinyarada qof walba waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daniyaal marweyn horta marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan hambaliyeeyo mustafe laba shay baan ku hambaliyeynaya horta inuu qalin iyo wadada isu qaaday waan ku hambaliyeynaya waayo arrin fudud maaha inuu buugga turjumay oo af ingiriisi ka turjumay af soomaali turjumayna waan ku hambaliyeynaya qofka siduu aqoon u helo amba waa inuu barto luqada aqoonta ay ku qoran tahay oo isagu aqoonta u tago amba waa in aqoonta afkiisa lagu qoro oo aqoonta u timaado innaga waxaa jira dad fara badan oo luqooyinka kale aan u fududayn sidaa aweed waxaynu u baahan inaynu aqoonta u keenno dadkeenna af soomaali lagu qoro marka taana waan ku hambalyeynaya munaasabaddan oo kale buuggaa la soo akhriyaa dabeedna tacliiq baa laga bixiyaa qayb anu halkan waxaan ka qeeraya inaanan soo akhriyin buugga laakiin wax badan baa iiga baxsan theory-ga amba ra'yiga amba afkaarta Adam Smith mabda uu ka duulayo Adam Smith waxa weeye in marka la soo koobo dowladdu ay faraha kala baxdo businesska inaanay faragelin se wuxuu aaminsan yahay dadka tabcaaya ee ganacsiga ku jira ee qof waliba dantiisun raacanayo keligii isagaan ka fakeraynin danta guud marka la isu geeyo inay abuurayso kor u kac dhaqaalaha qaranka wuxuu isticmaalaa invisible hand qof waliba wuu dadaalaya qofna qaranka u shaqeey niyadiis kuma jirto laakiin haddana dadkaa faraha badan qof waliba iskii u shaqaysanaya waxbay ku dambeynaysaa in dhaqaalaha qaranku kor u kaco haddii hoos loogu daadego nuxurka fikirka Adam Smith waxa weeye lahaansha ahaan inay dowladdu u deyso shicibku inay lahaadaan wax soo saarka iyo adeegaba oo aanay faragelin in dadku ay tartamaan shirkaduhu ay tartamaan oo aan lagu faragelin in qof waliba wixiisa uu kasbado uu markaa dee uu ka qaato hantida qaranka qof waliba wuxuu ku shaqaystay buu leeyahay qofna waxaanu shaqaysan ma laha iyo in qiimaha badeecadda amba adeega waxaa goynaya supply and demand soo saaridda iyo doonista ayaa goynaya dowladdu goyn mayso hadda isaga mabdigiisu kaa weeye haddii markaa arrinkaa la isdul taagoo la yidhaahdo miyuu arrinkaasu dhaliil leeyahay mise waa dhammaystiran yahay waxaa soo baxaysa inuu leeyahay dhaliiladii wax dhimi ma jiraan qur-aankii laynoo akhriyay hadda mooyaane wixii kale bani aadam sameeyey waxunbaa dee ka dhiman daliilihiisa waxaa ka mid ah nidaamka marka la qaato capitalismka ama free marketka af ingiriisiga lagu yidhaahdo in sinaansha la-aan ay timaado dadku dee meel ka wada bilaabi maayaan dadku isku wada kartina maaha isku wada aqoonna maaha isku wada farsamana maaha waa la berantamay waa la kala dheeraynaya marka dambe labaa loo kala baxaya nin wax haystay nima waxba haysan marka haddii aan cidi aanay soo faragelin laba dabaqadood baa la kala noqonaya haddii laba dabaqadood la kala noqdana dee xasiloonida meesha way ka baxaysa isagoo Adam Smith wuxuu leeyahay dowladdu ha ku ekaato inay cashuur qaado inay fuliso sharciga iyo inay xadka ilaaliso saddexdaa shay ha ku ekaato wax kale yaanay soo faragelin laakiin hadday intaa ku ekaato dee la kala tago oo nin sabool nin waxayse la noqdo dee waa meeshii wax ka dhacaysa nabadgelyo xumo ayaa marka dambe ka dhacaysa qodobka in la tartamo waa sax tartanku wanaagsan yahay laakiin mararka qaarkood tartanku wuxuu keenaa in la kala tago oo dabeedna dhowr shirkadood waaweyn intay soo baxaan intii yaryaarid basaaxadda ka saaraan dabeedna tartankuba yaraado
oo iyagu sicirka gooyaan iyo wixii soo baxayo marka taa laftigiisu dee looma deyn karo marketka free marketka looma deyn karo intervention weyn oo yimaado si taa loo ilaaliyo waxaa kaloo isna jira imika sawirka meelkan qiiq badan baa ka baxaya warshadaha wuxuu buugana qoray markii industrializationku ka bilaabmay waddankan ingiriiska qiiqaa badani hawadu ku dhammaanaya imika baryahan dambe hadda jira waxaa laga sheekeeyaa cimiladoo isbedeshay waxaa keenay marka dee wixii aynu wada lahayn qofkii isagu u dadaalay waa run qofkii warshada isagu u dadaalay laakiin wixii aynu wada lahayn buu wasakheeyey wixii inaga dhexeeyey ila hawada inaga dhexaysee ayuu wasakheeyey marka iyada laftigeeda in dee mataqan la xakameeyo waa mid meesha ku jirta waxayna jirtaa oo beri hortii weliba ku badnay oo dhici jirtay in dadka warshadaha leh ay exploit gareeyaan amba dulmaan shaqaalahooda qofkii shaqaalaha waxa laga yaabaa dee reer buu leeyahay carruur buu leeyahay uu ku khasbayay dee inuu wax soo shaqaysto si uu guriga u keeno cunto marka waxaa ka faa'iidaysan jiray berigii hore dadkan warshadaha leh loo shaqaynayo marka qofku waxa laga yaabaa inay meel aan ku munaasib ahayn ay u diraan inuu ka shaqeeyo oo caafimaadkiisa aan u wanaagsanayn waxa laga yaabaa lacag yar inay siiyaan marka dulmina wuu ka dhalan karaa marka weynan dee jirto cid odhanaysa shaqaaluhu dulmay ama meel aan ku habboonin buu ka shaqaynaya marka gacanta invisible-ka uu sheegay Adam Smith waxay u baahan tahay gacan kale oo ka ilaalisa dee bulshada iyo qaranka dhibaatooyinka la xidhiidha free market economy-ga amba free capitalist market-ka waxaan intaa raacsanayaa 90 sano ka bacdi markii buuggan uu soo baxay 1776 nin kale isaguna buug qoray ninka waxa la oran jiray Karl Marx waa garanaysa baan u malaynaya ninka falsafada shuuciga keenay weeye isagii Hegel nin la oran jiray Engel iyo marka ninkaasu buug buu qoray la yidhaahdo isna Das Kapital Das Kapital marka wuxuu odhanayaa hantidan qaranka amba hantida guud ee qaranku waa dhididkii dadka shaqaalaha ahaa ee aan laga abaalmarin marka ninka hanti goosadii ama ninka kapitaliska hantidu leeyahay dadka kama imanne dadkii u shaqaynayay un baanu xaqoodii wada siinayn buu kala haray marka taa micnaheedu waxa weeye si xaqdarrada maxay idhahdee dee loo waajibo wax looga qabto wax soo saar oo dhan waa inay dowladdu yeelato waa inaan shicibka loo daynin shicibku wuu shaqaynayaa qof walba wuxuu shaqaysta baa la siinayaa laakiin hantida gacanta gacanta ku haynaysa dowladda waxaa la soo saaraa iyadaa go'aaminaysa qiimahana iyadaa go'aaminaysa qof walbana waxaa la siinaya iyadaa go'aaminaysa qofku waa inuu dee kartidiisa isagoo isticmaalayo uu shaqeeyo qaranka guud dowladduna waa inay siiso baahidiisa wuxuu u baahan yahay oo hoygiisa iyo cuntadiisa dee wayna uga adkaatay inta taa laftigeedu waxay leedahay mashaakil oo marka qofka la yidhaahdo waxba ma lihid adigu warshaddaa tag amba beertaa tag shaqee waxbaanu ku siinaynaa qofku mar haddaanu arkaynin dhididkiisa iyo manfaciisoo isku lamaan haddaanu arkaynin hadduu aada u dadaalo in wax ka soo gelayaan ma dadaalaya waxaa weliba laga yaabaa in maxaan idhahdaa wixii ka soo baxa dalka in badan in lagu qaato maxaan idhahdaa musuqmaasuq had iyo jeer waddamada shuuciyiinta ama soshaliiskii amba hanti wadaagii waxay leeyihin xisbi bay leeyihin anugu waddan shuuci waan ku noolaan jiray waddan hanti wadaagana waan ku noolaan jiray waddan kapitalism waan ku noolaan jiray marka waddamada shuuciyiinta had iyo jeer dadka ugu ladan ee baabuurta fiican wata ee guryaha wanaagsan ku jira ee dee lacagtu ka muuqato ee dharka wanaagsan gashan waa xubnaha xisbiga shaqo kuma helin siyaasad bay ku heleen marka taasina maaha mid dhiiri gelinaysa wax soo saarka midda kale maadaama qofku aanu arkaynin isku xidhnaanshaha fikirkiisa iyo wuxuu helayo inta badan
xagga horumarka efficiency-ga iyo innovation uu ku yar yahay ikhtiraacuu ku yar yahay oo waxba ka heli maysid daba bato bilad baa lagu xidhaya waxaad habeen oo dhan soo jeedin marka had iyo jeer wax soo saarkoodu waxa weeye waa tayo ma laha amba waa inefficient corruptionna wuu keenaa waxaana laga yaabaa mararka qaarkood inay dowladdu ay soo saarto waxaan looba baahnaynbaba oo iska khasaaro dadka ka khasaara ile suuqi iyadu ma taqaanaa wuxuu doonayo kamid duulin waxa iyadu doonaysa bay ka duushay marka kaa laftiisu mashaakil buu leeyahay waxaan malinaya waddamada ku hadhaya imka waddanka systemka socialismka ama communism way yaryihiin waxaasle waa Cuba iyo North Korea ayuu si rasmi ugu hadhay inta kale way ka guurtay labadaas system waxaa saddexeeya system kale oo la yidhaahdo social democracy social democracy wuxuu isu geeyaa hab wax soo saarka capitalismka iyo xilisa saarka socialismka wuxuu leeyahay okay dowladduna wax way yeelan kartaa shicibkuna wax wuu yeelan karaa waa la tartamayaa sicirka tartankaa goynaya dowladdu goyn mayso haddaanay ahayn public utility haddaan ahayn mataqaana wax loo baahan in la ilaaliyo marka korontadoo kale iyo biyahoo kale iyo debrigii hore dowladda ilaalin jirtay oo goyn jirtay sicirka inta badan kuwa caynka caalamka oo dhanba haddaanay taa ahayn sicirka suuqaa goynaya laakiin si aan sinaasho looga tegin waa inuu jiro safety net qofka meel aanu dhaafi karin qofku hadduu xanuunsanayo hadduu sabool yahay hadduu hooy leeyahay mas-uuliyadda waxa qaadaya mujtamaca waa in loo xaqiijiyo qofku dee inuu si biniaadnimo u noolaado inuu wuxuu cuno helo aanu gaajo u baktiin xuxuma inaanay helin hooyxuma inaanay helin dayac inaanu helin carruurta inaanay dayacmin maaragtay buu odhanayaa systemku laakiin waa system dimuqraadiyad ku dhisan dadka gacanta ku haya maamulka waa lasoo dooranayaa hantidana waa la wada leeyahay dowladduna waxbay ku leedahay waddamadan Scandinavian-ka 25% ilaa 30% hantida qaran dowladdaa leh inta kale waxaa leh private sector-kaa leh marka waa mix marka runtii saddexda markaad eegto ka ugu successfulsan aan sida malaa waynu ku dayan karnaa waxbaynu ka qaadan karnaa waxa weeye waa ka social democracy-ga weeye horta intaasaan kusoo koobay kaa social democracy wuxuu leeyahay aan ku dhammaynayaa hal dhaliila waxaa la welfare system welfare systemku waxa weeye waa chief oo jaq bay Soomaali tirahdaa qofkii wuxuu odhanayaa anigu dhaawacba ma baaha ona dhaawacbaan ma shaqayn karo siduu u helo guri iyo siduu helo masaarif joogto ah iyo siduu helo daryeel caafimaad marka wuxuu dhiiri gelinayaa dadku inaanay shaqaynayn mataqaanaa had iyo jeer la yimaadaan sababo wax loogu siiyo ay qofka halku shaqada ka shaqayn lahaa wax ka heli lahaa masruufsan lahaa waatin loo furay daaqadda la yidhi haddaad liidato maxaa idhahdaa soo xaadiri dowladda wax ku siinaysa marka ma dhiiri geliyo shaqada runtii inana inta badan dee waqtigaa inoo baaqday siyaasad baynu ka shaqaynaaba marka dibadda la joogo aad bay u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu